aroosku waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu badan ee qof walba filanayo inkastoo ay jiraan dhaqamo kala duwan xilliga arooska oo bulsho walba ay leedahay haddana kumanaan aroos ayaa la aaminsan yahay inay isku nooc yihiin waa hab ay ku bahoobaan laba qof oo ay markii hore masaafo dheer u dhaxaysay kaas oo ka dhigaya labada ruux ee isugu dhow aadanaha munaasabadaha arooska ayaa marmarka qaar noqon kara kuwo sahlan oo aan qarash badan lagu bixin laakiin mar walba xamaasad sare ayaa ka jirta goobta arooska qarashka ku baxa arooska ayaa hadba ku xiran inta uu leeyahay jeebka ama kaydka lamaanaha wadamo badan waxaa jira celcelis iyo qiyaas qarash oo la yaqaano tusaale Mareykanka waxaa celcelis ahaan aroosyada ku baxda 25,000 ilaa 32,000 dollar inta u dhaxaysa laakiin lamaanaha aan sheekadooda idiin soo wadno arooskooda waa ay ku filnaan weysay xitaa 1 milyan oo dollar sheekadan oo ay qortay Finance Online waxay ka hadlaysaa 10kii aroos ee ugu qaalisanaa inta taariikhda la xasuusto liiskan waxaa hogaaminaya Amir Charles iyo Prince Diana oo ka tirsanaa qoyska boqortooyada UK kuwaas oo loo diiwaan geliyay inay dhigteen arooskii ugu qaalisanaa abid inta taariikhda la ogyahay inkastoo laga joogo ku dhawaad 40 sano haddana ilaa hadda lama qaban aroos ka qaalisan arooskii Amir Charles iyo Prince Diana waxaa ka soo qayb gashay 3,500 oo qof waxaana TV-yada caalamka ka daawanayay 750 milyan oo qof arooskan waxaa ku baxday 110 milyan oo dollar wax kasta oo aan macquul u muuqan ayaa la sameeyay xilligaas arooska labaad ee adduunka ugu qaalisani waa midkii dhex maray Fanish Mittal iyo Amit Fatia Fanish Mittal waa gabadha Lakshmi Mittal oo ka mid ah ragga ugu hodansan ama ugu lacagta badan adduunka sidaa darteed la yaab yeysan kugu noqon in arooskooda ay ku baxday 66 milyan oo dollar arooska ayaa ka dhacay goobta qadiimiga ah ee Chateau Fax La Victom oo la dhisay qarnigii 17aad goobtan ayaa ku dhow magaalada Paris ee waddanka France arooskan wuxuu dhacay 2004 waxaa jirtay xaflad gaar ah oo arooska ka horreysay oo ka dhacday goobta la yiraahdo Versailles kooxda caalamiga ah ee heesaha iyo farshaxanka ee loo yaqaan Kylie Minogue ayaa 330,000 oo dollar lagu soo ijaaray si ay hal saac dadka u madadaaliyaan nasiib darro lamaanaha intaas oo lacag arooskooda lagu bixiyay waxa ay kala tageen 2013 arooska saddexaad ee taariikhda ugu qaalisan waxaa dhigtay Prince William iyo Kate Middleton oo ka tirsan qoyska boqortooyada ee UK ilaa 2,000 oo marti sharafa ayaa lagu casuumo oo ka soo qayb galay arooska qoyska reer boqor waxay isugu jireen dadka goobta yimid qaar ka socda qoyska boqortooyada qoyska reer Milton saaxiibada Katia saaxiibada William iyo dad magac iyo sharaf ku leh gudaha Britain iyo dibadda sidoo kale waxaa arooska ka qayb galay madax ka kala socotay ilaa 50 waddan adduunyada ku yaala dad lagu qiyaasay 600,000 oo ka tirsan dadweynaha caadiga ayaa isugu yimid goobta uu meerku ka dhacayay dadkan badankood waxay ka yimaadeen wadamada kale ee reer Yurub iyo waqooyiga Ameerika arooskan oo dhacay 2011 waxaa loogu yeeray arooskii qarniga 21aad waxaana ku baxday lacag dhan 34 milyan oo dollar suxufiyiin lagu qiyaasay ilaa 10,000 oo wariye oo ka kala tirsan saxaafadda caalamka ayaa dhacdadan ka tabinayay magaalada London waxaa la aaminsan yahay inay shaashadaha ka daawadeen ilaa 2 bilyan oo qof munaasabadan waxay tii ugu weyneed ee nuuceeda ee 40kii sano ee ugu dambeeyay ka dhacday Britain tan iyo markii Prince William aabihii iyo hooyadii oo ahaa Prince Charles iyo Lady Diana ay isguursadeen sanadkii 1981 waxaana sanadkaas telefishinada adduunka ka daawanayay sida aan bilowgii sheekada idiin sheegnay ilaa 750 milyan oo qof sida ay sheekadan ku sheegtay Finance Online arooska afraad ee adduunka ugu qaalisan waxaa dhigtay laacibkii hore ee kooxda Manchester United iyo xulka waddanka Ingiriiska Wayne Rooney iyo xaaskiisa Colin arooskan wuxuu ka dhacay deegaanka Carvara oo u dhow magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga sanadkii 2008 kooxaha heesaha ee waddanka Ireland ee boy band iyo Westlife ayaa ka garaacay arooska Wayne Rooney waxaana ay qaateen lacag dhan 670,000 oo dollar Rooney ayaa 5 diyaaradood oo qaas ah ku daabulayay martida arooskiisa arooskan waxaa ku baxday 8 milyan oo dollar laakiin labada lamaane ayaa caawimaad lacageed ka helay wargeys si gooni ah u iibinayay sawirada arooskooda arooska shanaad ee adduunka ugu qaalisan waxaa dhigtay Chelsea Clinton iyo Mark Misnefiski haddii aad tahay gabadha madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo xogiyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka sida iska cad arooskaagu wuxuu noqon doonaa mid sare Chelsea Clinton waxaa iska dhalay madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo xogiyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton
Chelsea Clinton waxay guursatay Mark Snaviski oo ah maalgeliye dhanka bangiyada ah. Wuxuu ahaa mid ka mid ah aroosyada ugu waaweyn ee adduunka, waxaana ilaa iyo hadda laga hadlayaa Mareykanka. Arooskaas waxaa ku baxday $5 milyan. Arooska lixaad ee ilaa hadda caalamka ugu qanisan waa midkii dhex maray Liza Minnelli iyo David Gast. Fanaanada reer Mareykan ee Liza waxay guursatay soo saare barnaamij TV kaas oo sidoo kale markii dambe ku biiray Hollywoodka oo iyaduna ay ka tirsanayd. Arooskan wuxuu ahaa midkii ugu badnaa oo ay jilayaal iyo heesayaal ka qayb galaan. lacagta ku baxda waxay ahayd $4 milyan iyo $200,000. Arooskan oo dhacay 2002 dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa fanaankii caanka ahaa ee Michael Jackson. Nasiib darro lamaanaha waqti badan ma wada joogin. Markii hal sano laga joogay arooskooda ayay isku dhaceen, balse furiinkooda wuxuu qaatay 5 sano. waxaa lagu tilmaamay ficilkii ugu xumaa ee ka dhaca gudaha Hollywood. David Gast wuxuu ku andacooday in Liza ay garaacday markii ay qamri si xad dhaaf ah u cabtay. arooska toddobaad ee adduunyada ugu qaalisan waa isla sheeko la xiriirta Hollywood. haliyadii hore ee Hollywoodka Elizabeth Taylor ayaa la kulantay nin dhismo ka shaqeeya waana Lori Fartaniski. labadoodu waxay isku arkeen goob la isaga baaro dhibaatada caafimaad ee ay daroogadu keento iyagoo hubinaya xaalkooda. wuxuu ahaa jacayl gaar ah oo xiiso badan. sheekooyin badan ayaa laga qoray qisadooda. waxay qabsadeen aroos ballaaran oo ay soo xaadireen xidigii xilligaas ugu caansanaa Hollywood, waxaana arooskoodu dhacay sanadkii 1991. arooskan waxaa ku baxday $4 milyan. 5 sano kadib waa ay kala tageen lamaanahan, laakiin waxaa la sheegaa inay ahaayeen saaxiibo isku fiican ilaa ay ka geeriyootay Elizabeth Taylor 2011. arooska sideedaad ee caalamka ugu qaalisan waxaa ku baxday $3 milyan iyo $600,000. wuxuu dhex maray halyeygii muusigada ee Britain Paul McCartney iyo gabadha ganacsatada ah ee Heather Mills. wuxuu dhacay sanadkii 2002. xafladda ayaa ka dhacday Ireland. iskuma raagin lamaanahan waxaana ay kala tageen 2008. lacagtii arooskooda ku baxday waxaa 4 jibaar ka badnayd lacag ganaax ah oo furiinkooda la socotay. arooska sagaalaad ee caalamka ugu qaalisan wuxuu ahaa midkii dhex maray gabadha modelka ah ee Britain Elizabeth Hurley iyo ganacsadaha reer India Arun Nair. arooskan wuxuu dhacay 2 jeer. markii koowaad waxay ahayd 2007 wuxuuna ka dhacay Sudley Castle oo England ka tirsan. markii labaad waxaa arooska lagu qabtay Umid Fawan oo ka tirsan Jodhpur. ganacsada Nair wuxuu arrintan u sameeyey isagoo tixgelinaya dhaqanka Hinduuga. arooskan waxaa ku baxday $2 milyan iyo $600,000. 4 sano kadib ayay kala tageen lamaanahan kadib markii la sawiray Elizabeth oo dhunkanaysa xidigga ciyaarta cricketka ee waddanka Australia Shane Warne. dhacdadan ayaa sababtay inuu ka caroodo Arun Nair, sidaas ayuuna furiinku ku yimid. arooska tobanaad waa midkii dhex maray Christian Aguilera oo ah gabar haysta oo Mareykan ah iyo ninka suugaanta cuuriye ee Jordan Batman. arooskan ayaa dhacay 2005 waxaana ku baxday $2 milyan iyo $200,000. lamaanahan ayaa kala tegey 2011 waxaana ay isku dhaleen hal cunug. 10kan aroos ayaa ilaa hadda haysta diiwaanka aroosyada lacagta ugu badan lagu bixiyo abid. laakiin markii aad xogtan si fiican u dhuuxdid waxaad fahmaysaa in aanay badi raagin aroosyada qaaliga ah ama lacagta badan lagu bixiyo. sheekadan waxaa qortay Finance Online. daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo bahda subscribe gareysay oo ku tixan